بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن داوديان ميل والباه وجوجتان كسو دوادا عاوة يا ركت عصب قضبدا aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqo ka joojin ku sameeyay taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hor yimiday wareegtidii ka soo baxday Ra'iisul Wasaare Roble ee uu shaqada kaga joojiyay taliyihii nabad sugidda qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dilka loo geystay Ikraan Tahliil oo ka tirsaneeday nabad sugidda qaranka duqaha magaalada Bergen ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan sare u kaca saboolnimada ee dadka ajaanibta ku nool gudaha waddanka Norway duqaha magaalada Bergen ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan sare u kaca saboolnimada ee dadka ajaanibta ku nool gudaha waddanka Norway wariyahana Bile Maxamed Cabdi Baaste oo wareystay duqa magaalada Bergen ayaa faahfaahinta warkan Bergen inooga soo diray marka ka sii dambaysa isheenu waxa ay qabataa tiknoolajiyad casri ah dhagaheena waxa ay maqlaan dadka hodanka ah dhaqaalahooda oo sii kordhayo marka aad ku sugan tahay wadamada horumaray balse waxa jira marka aad u koorgasho dad iyagu sabool ah oo ku sugan isla wadamada dhaqaalahooda uu sareeyo dhawaaqa ama shanqarta ka soo yeerta dadkaasi saboolka ah ma ahan mid dhagaha aadanaha u roon si arrimahaasi wax looga qabto ayaan su'aalo aan hordhigay duqa magaalada Bergen maaqta ahna musharax xildhibaan baarlamaanka Norway waxayna lambarka koowaad kaga jirtaa tartamayaasha xisbiga shaqaalaha gobolka Hordaland sanadihii ugu dambeeyay kala duwanaanshiyaha waddanka way sii korortay dadka hodanka ah way sii taajireen halka dadka saboolka ay saboolnimadii sii korortay kala duwanaanshiyaha intaas la eg waxaa sababay hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha saboolnimada taabatay oo ku nool dalka Norway oo aad ogtihiin dadka ay arrimahaasi saameeyeen waxaa ugu horeeyay dadka ajaanibta ah sidoo kale waxay taabatay dadka Norwejiyaanka qaarkood sababtaasina waxaa keenaysa in waalidiinta ajaanibta badankooda inay qaxooti yihiin sidoo kale arrintan waxay ku saabsan tahay waxbarashada iyo luqadda oo la barto sidaa daraadeed ayaan rabnaa in aan xoojino iskuulada afka Norwejiyaanka lagu barto waxaa jira dad badan oo ka yimid dalal kala duwan oo aan horay u soo helin waxbarasho ku filan laakiin hadda fursad u helay inay wax bartaan waxaa kale oo muhiim ah in dadka badankood inay shaqeeyaan sidaa daraadeed ayay muhiim inoogu tahay in dadka badankood inay shaqeeyaan sidee dadku shaqo ku heli karaan ayaad isleedahay aniga ka ahaan waxay ila tahay in shaqo buuxda dadku helaan oo wanaagsan oo xasiloon mid kale waa in aan ku dadaalnaa in ilmaheena nolol fiican ay ka helaan waddankan sidaa awgeed waxaan rabnaa in caruurta yaryar la siiyo goobta lagu haayo marka uu iskoolka dhammaado kadib asafuu oo lacag la'aan ah midda kalena waxa waaye waalidka cunugiisa saddexaad inuu xanaanada ilmaha ku dhigto si bilaash ah waa muhiim haddii aad 3 caruur ah leedahay in aadan bixin mid ka mid ah caruurtaas lacagta xanaanada waayo qodobkan waa muhiim maxaa yeelay dadka caruurta badan haysta inaysan dhammaantood lacag ka wada bixin caruurta sidoo kale waqtiyada caruurta ay firaaqada yihiin goobaha la isugu keeno inay iyaguna helaan lana sameeyo iskuulada lagu barto hidaha iyo dhaqanka dadka oo dhanna caruurtooda si siman ay ugu wada qayb gali karaan guud ahaan waddanka Norway sidee ku suuragali kartaa in caruurta saboolka ah fursadaha waxbarasho ee aad ka dhawaajisay inay fursad u helaan waalidiinta dhalayna loogu qanciyo arrintaasi aniga ahaan hooyo 4 caruur haysata ayaan ahay siyaasadana waan ku jiraa duqa magaaladana waxaan soo ahaa muddo 6 sano ah haddana waxaan u socdaa in aan ka mid noqdo xildhibaanada cusub ee la filayo u dalka yeesho anigoo dumar ah sida aan isku soo saaray heerka maanta aan joogo waxay tahay marka koowaad waxaan ahaa qof nolosheeda oo dhan soo shaqaynaysay qof tacliin lehna waan ahay laakiin aniga iyo ninkaygaba waa iska wada kaashanay shaqada guriga sababtuna waxay
tahay haddii aan iscaawin lahayn shaqada maanta aan hayo ma qaban lahayn awoodna uma yeelan sidaas awgeed bulshada waxaan kula talin lahay inay iscaawiyaan shaqo kastoo aad heli kartiin qaata oo tijaabiya ha isdhiibina haddii aad shaqo weysaan tan kalena haddii aad awoodiin waxbarta caruurtiinana ku aamina goobaha lagu xanaaneeyo caruurta dadka ka shaqeeya haddii uu ku guuleysto hoggaankeena xisbiga shaqaalaha talada dalka qorshe gooni ah oo dadka saboolka aad ugu tala gasheen ma jirta xisbiga shaqaalaha waa xisbi bulsho oo dimuqraadi ah sidaa daraaddeed ayaa inagu leenahay qorshooyinka la qabanayo in dadkoo dhan aan ka wada shaqayno inagoo isku wada duuban sababtaas awgeed ayaa rabnaa in dadkoo dhan shaqo la wada siiyo oo la abuuro goobo shaqo ay ka shaqayn karaan sidaas daraaddeed waa in aan qaybsanaa mirihii ka soo baxay waxqabadkii si qofka marka uu shaqeeyo canshuur looga jiro dibna loogu celiyo dowladda si ay howlo kale ugu qabato bulshada waxaana ka mid ah goobaha caafimaadka haddii aad xanuunsatid in aad heshid caawimaad dhinaca caafimaadka adigoo lagu fiirinaynin meesha ka timaaday waxaa tahay iyo in jeebkaaga la fiirinaynin waxaa kale oo iyana muhiim ah in la sameeyo iskuulaad inaga wada dhexeeyo oo aan ku xirnayn qofka asal ahaan halka uu ka yimid diinta uu haysto rag ama dumar wuxuu yahay in aan loo fiirin iyo in wax la iska wada faa'iido halkaasina waxaa inoogu eg waraysigii koobnaa ee aan la yeeshay duqa magaalada Bergen mahadsanid maaqta qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan dilka loo geystay Ikraan Tahliil oo ka tirsaneeday nabad sugidda qaranka aqoonyahanada oo la hadlay warbaahinta aragti cusub ayaa sheegay in wax lagu xumaado tahay in waalidiinta gabadha dhalay weli si sax ah loogu cadeyn halka gabadhooda nolol iyo geeri ay ku dambayso aqoonyahanada ayaa xusay sida loogu baahan yahay cadaalad ay helaan ehelada Ikraan Tahliil assalaamu calaykum dhammaan ummadda sharafta leh ay daawanayso ama ay fiirsanayso waxaan leeyahay marka koowaad waxaan muujinaynaa annaga jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway joogto haddaan nahay in maaragtay ay na dhibayso aan ka damqanayno arrintan murugada leh oo aan la qaybsanayno familka oo aan garab taagana insha Allah taala tanna aanan annaga maaragtay ogolayn raalina aanan ka ahayn sababtaasna hadda TV-ga khayr Allah siiyo wiilasha TV-gan warka cusub ka shaqeynaya ay noogu imaadeen ay noo weydiinayaan annagana maaragtay aan leenahay insha Allah taala waxba ma qaban karno hadda annaga dawlad ma nihin laakiin insha Allah taala waxaan muujinaynaa oo ka dhiidhinaynaa arrinkan ugubka ku ah Soomaaliya oo xanuunka badan leh marka hooyada waxaan leenahay insha Allah taala sabar way noo soo kala cadaan doontaa insha Allah taala garabkaagana taagana waa mahadsantiin dadka maanta jooga intooda badan dad aan arrinta Soomaaliya xog badan ka haynin danaysigooda oo la galay arrimo aan fiicnayn sida muuqata dilal ay ka mid yihiin inay qabsadeen hay-adihii mataqaanaa ammaanka marka waxaan isleeyahay gabadhaasi haddii sida muuqata ma muuqata inay helayso qaanuun dawliyaho dowlad Soomaaliyeed sharcigeeda laakiin dadka deegaanka iyo dadka waxgaradka sida hadda u istaageen ayaa waxay la rabaa inay ka dhabeeyaan si uusan dembigaas oo kale mar kale u soo noqon oo dad shaati dawladeed wata aysan dhibkaas oo kale inta geystaan si fudud aysan u baxsanin oo aysan berri looga waantoobo in laga sal tago oo laga daba tago oo gabadhaas iyo ehelkeedii iyo qaraabadeedii iyo qoyskeediiba ay cadaalad helaan anuu sidaas haddaan nahay jaaliyadda Norway Soomaalida Norway degan runtii aad iyo aad ugu xunnahay qof kastoo Soomaaliya oo xuquuq u leeyahay annagoo wadamo islaami joogna ayaa xuquuq leh marka insha Allah waxaan rajeynayaa in cadaaladda la gaarsiiyo wabillahi tawfiiq kiiska Ikraan ayaa meeshii ugu sareysay gaaray kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble shaqo ka joojin ku sameeyay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya taas oo keentay inuu ka hor yimaado madaxweyne Farmaajo lamana oga halka ay ku dambeyn doonto kiiska Ikraan in cadaalad hesho iyo waliba khilaafka madaxda ugu sareysa ee dowladda federaalka Soomaaliya qodobkan kalena daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqo joojin ku sameeyay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya dhanka kalena midowga musharaxiinta iyo maamul goboleedka Jubbaland ayaa si weyn u soo dhaweeyay wareegtada ka soo baxday ra'iisul wasaare Roble
war-saxaafadeed ka soo baxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayuu si kumeel gaar ah xilkan ugu magacaabay taliyihii hore ee ciidamada asluubta soomaaliya sareeya guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe ayaa sidoo kale ahaa taliyaha nisa intii u dhexaysay 2013 ilaa 2014 xilligii madaxweyne xasan sheekh. rooble ayaa fahad ku amray in uu muddo 3 maalmood ah uu xilka ugu wareejiyo bashiir goobe. ra-iisul wasaaraha ayaa qoraalka uu soo saaray ku sheegay in uu shaqo ka joojinta fahad u adeegsaday qodobka 13aad ee dastuurka oo ka hadlaya xaqa nolosha, taasi oo loo fasiran karo in uu ku eedeynayo dilka Ikraan Tahliil Faarax. wuxuu sidoo kale adeegsaday qodobka 127aad ee dastuurka ee ka hadlaya in ciidamada dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadda, wuxuuna sheegay in fahad uu ku milmay siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale xusay warqadii uu fahad soo saaray ay u muuqanaysay mid uu kaga cagajiidayo amarka ka soo baxay. warqadda uu soo saaray taliyihii hore nisa fahad yaasiin ayuu ku codsaday in uu warbixin guud siiyo golaha amniga qaranka ee uu ku jiro madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa faray xeer-ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida cabdulaahi buule kamay in uu baaris rasmi ah ku sameeyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax. war-saxaafadeed si kala gooni ah uga soo baxay midowga musharaxiinta iyo maamulka Jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyay war-saxaafadeedkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble. midowga musharaxiinta ayaa ku taageeray ra-iisul wasaaraha shaqo ka joojinta taliyaha nisa, iyagoo arrintaasi ku macneeyay in furo u noqon doonto cadaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahliil. sidoo kale maamul goboleedka Jubbaland ayaa dhankiisa taageero u muujiyay ra-iisul wasaaraha soomaaliya go-aanka uu ka qaatay kiiska Ikraan Tahliil. Jubbaland waxa ay ku qanacsan tahay tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaaraha ee kaga jawaabay codsigii isdabajooga ahaa ee ka imaanayay qoyska, qaraabada iyo shacab weynaha Soomaaliyeed ee lagu dalbanayay sidii ay cadaalad ku heli lahayd sarkaalad Ikraan Tahliil, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamul goboleedka Jubbaland. ugu dambeyn Jubbaland ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha xil weyn ka saaran yahay amniga qaranka maadaama madaxweyne farmaajo uu ku wareejiyay. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor yimiday wareegtidii ka soo baxday ra-iisul wasaare rooble ee uu shaqada kaga joojiyay taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale lagu faray hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in ay warbixin buuxda hor keento golaha amniga qaranka ee la xiriirta arrimaha keena khilaafka. ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ugu baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golaha xukuumadda in ay si hufan u gutaan mas-uuliyadda ka saaran dhammaystirka howlaha doorashooyinka. war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u muuqanaya mid uu kaga jawaabayay wareegtadii ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ee uu shaqada kaga joojiyay taliyihii nabad sugidda fahad yaasiin, waxaana tani ay keeni kartaa in ay sii kordhaan khilaafka xooggan ee ka dhex jira madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaanna daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa caawa iyo aragti cusub. wararkii ugu dambeeyay ee Norway iyo caalamkaba waxaad nagala socon kartaan baraheena bulshada sida Facebooka, YouTube-ka iyo waliba aragticusub.com. waa ku mahadsantihiin daawashada warka. kan intaan dib u kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.